السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتهن صومالي محمد ملكستو الدنيا ذاك جوكتان وحان إذير رجينا يا فرحات ريرين عزي يا قب يا شرف إن تكونوا والله ملكستو الدنيا ذاك جوكتان إن وحان كمد هاي شعب كفرما جيسن أو مهدي ميديسن نين waxay soo geliyay saakaytoole waxaan arkay tarsan oo qudbeenayo oo leh 30 sano kadib sharafteeni iyo qabkeeni waan soo ceshanay haddii aan nahay shacabka Soomaaliyeed caasimadda Nairobi dayactir wanaagsan mataqaanaa quruxsan muraayadii dalka ama safaaradii ummadda Soomaaliyeed dib loo dayactiray oo shalay toole la furay waxaan arkaa maxallaha wasiirka warfaafinta guutaale maasha Allah mataqaanaa kabaha la dulmaray ragga mataqaanaa buuqi iyo mataqaanaa ka wadan guddiga doorashooyinka doorasho dadban way dhacaysaa waqtigeeda ku dhacaysaa mudane madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa ku soo laabanaya insha Allah haddaynu nahayna shacabka qaranka Soomaaliyeed waynu garab istaagsannahay waynu taageersannahay xukuumadda nabad iyo nolol waxayna bareen dowlad wanaag waxayna bareen qab sharaf iyo cizi mataqaanaa waxay kale too mataqaanaa na tusiyeen in loo shaqeeyo wadanka oo aan laga shaqaysanin waa ku mahadsantihiin meel fiican baad dalka soo gaarsiiseen warabna doorasho qof iyo cod sanadkan inay dhacdo laakiin ra'iisul wasaarihii mataqaanaa aan dooranay oo mataqaanaa 3 sano iyo bar aan jaanis siinay ayaa wuxuu ahaabo khiyaano qaa'inul wadan qaa'im buu ahaa kasoo horjeeda doorasho qof iyo cod inay dhacdo qabkii sharafkii ciziga ummadda Soomaaliyeed kor loo soo qaado mataqaanaa qabqable iyo qurun mataqaanaa ka hoos wareegay mataqaanaa markii xilka laga qaadayna mataqaanaa u baxay inuu mataqaanaa basaas mataqaanaa u noqdo Kenya mataqaanaa dadkii badeeni dhulkeeni ku soo duulay mataqaanaa aaday kadibna mataqaanaa gacan weydiistay waxaan leenahay xasan cali khayre ma waxaan ku moodnay mise waxaan noqotay mise waxaan loo noqon doon waxaan ku moodnay inaad tahay wadani oo mataqaanaa qaranka mataqaanaa u taagan ama u dadaalayo waxaan noqotay qabqable qaran dumis daba dhilif shisheeye kalkaal waxaan loo noqoni doonin inay kalsooni adiga ay shacabka Soomaaliyeed ku siiyaan fikradaadan mataqaanaa guracan oo mataqaanaa 4.5 ku aadan laga soo tag Soomaaliya cid ka sareysa male waxaynu ku dooranaynaa haddaynu nahay shacabka qaranka Soomaaliyeed mataqaanaa hogaaminta waxaan ku dooranaynaa hawlkarnimo codkarnimo iyo daacadnimo iyo inuu dalka u shaqeeyo ku dooran meeno waa qabiilkayga ama mataqaanaa qarash buu isiiyay ama mataqaanaa dan gaar aan ka leeyahay ku dooran meeno waxaan leenahay guul iyo gobonimo shacabka farmaajeysan oo mahdi midaysan Soomaaliya horbay u socotay cagtii horumarkay saartay lugta mataqaanaa wixii qaran dumis ah wixii daba dhilif ah wixii qabqable ah toosh weyn baan ku haynaa Sheekh Shariif Sheekh Ahmed waa ninkii mataqaanaa dhahay badii markii la gadaayeen oo mataqaanaa la saxiixay madaxweyne ku meel gaar ka ahaa wadanka markii la weydiiyeen dhahay ma ogi ma urin mana arag markii la weydiiyay maxallaha Cabdiraxmaan Cabdishakuur ninkii badda saxiixay inamako uu yiraahdo uu ogaa Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake waa asigana sidoo kale waa dulli daba dhilif qaran dumis shisheeye kalkaal ah Xasan Sheekh Maxamuud waa ninkii gabdhihii uu dhoofiyay oo carab uu mataqaanaa Sacuudi Carabiya mataqaanaa kastuumooyinka mataqaanaa inay la dhaqo cabal dhahay
markii la weydiiyo lahay mudana madaxweyne miyaad ku saxan tahay gabdho Soomaaliyeed inaad mataqaanaa aad wadan kaleeta aad mataqaanaa ka gadid oo waliba gabdhaha qaraabadiisa ay u badan yihiin tolkiisa ku dagaalamay idaacada dhahay ma gabdhaha shaqaad u haysaa shaqa gabdhaha haysaa ya waana aragnay mataqaanaa rafaadkii iyo silcay ay ku jireen xukuumadda nabadii nolol aad bay u mahadsan tahay gabdhihii uu xasan sheekh maxamuud xasan qoslaaye guurguurta uu dhoofiyey inaan dib ugu soo celinay muqdisho caruurtii mataqaanaa uu ka tahriibiyey mataqaanaa qaranka Soomaaliyeed oo mataqaanaa xabsiyada dunida dacaladeeda ku jiray dib ugu soo celinay muqdisho hoggaan wanaagaas iyo sharaftaas iyo qabkaas iyo cizigaas waxaa noo horseentay xukuumadda nabad iyo nolol oo uu mataqaanaa gudoomiye ka yahay Mahdi Axmed Khadar Guuleed iyo mudane madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo insha Allah shacabka Soomaaliyeed kuwooda waxgaradka ah kuwooda indhaha leh kuwooda mataqaanaa aqligooda uu mataqaanaa uu shaqeynayo waynu aragnaa isbedelka dalka ka jiro waynu aragnaa sharaftii iyo cizigii iyo qabkii mataqaanaa ummadda Soomaaliyeed dib u soo laabtay Soomaaliya oo mid ah insha Allah waxaan mataqaanaa rajeynaynaa doorashada xigto inay Hargeyso iyo Muqdisho ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah oo mataqaanaa doorashada qof iyo codkana mataqaanaa shacabka Soomaaliyeed ay ku doortaan keebaa wax noo qabanayo keebaa balanqaadkiisa mataqaanaa macquul gal yahay keebaa mataqaanaa ka dhabeyn karo hadalka balanqaadka uu mataqaanaa qaadayo insha Allah dalka wuu hormaray xuduudaheena waan soo xiranaynaa dhinacan gada waa ka bilownay waxaa ku xigi doonta ilaa isasarkaas Doobley ilaa iyo Kulbiyo ilaa iyo Raskiambon inaan tagno insha Allah dhinacaas kaleetana mataqaanaa Ethiopia iyo Soomaaliya xuduudaheena migration adag dhigano ciidanka qaranka Soomaaliyeed SNA Somali National Army la isku dhafo ciidamadan daraawiishta la leeyahay oo qabyaaladeysan sida ciidamada Somaliland ciidamada Jubbaland iyo ciidamada Puntland sida ugu dhaqsiyaha badan insha Allah waxaa la wareegayso dawladda federaalka qalabeenteeda mishaarkooda iyo mataqaanaa hor istaagnidooda insha Allah waa la mideynayaa waa la isku dhafayaa Soomaaliya ma kalmaaranto Soomaaliya waa hal waxaanu nahay Soomaali isku luqad ah isku mataqaanaa color ah isku diin ah isku dhaqan ah meel aynu ku kala tagno male insha Allah mustaqbalka fogna jigjigi iyo Gaaris waxaa laga xukumi doonaa Muqdisho insha Allah waxaan leenahay xubbi baan ku qabnaa Farmaajo xaq weeyaan Farmaajo madaxweyne xalaal Farmaajo mar labaad xaqiiji Farmaajo xubbi baan ku qabnaa Farmaajo xaq weeyaan Farmaajo madaxweyne xalaal Farmaajo mar labaad xaqiiji Farmaajo insha Allah Soomaaliya guul iyo gobonimo u rajeynaya ku dheeraani maayo waxay soo galiyeen live-ka maanta waxay soo galiyay Tarsan iyo maxallahay wasiirka arrimaha dibadda maxallahay Cawad ayaan arkay maxallahay furitaankii safaaradda Soomaaliyeed mataqaanaa dalka Kenya gaar ahaan caasimadda Nairobi waxaan leenahay Soomaali baa iska leh Soomaaliya ha noolaato nabad iyo nolol ha ku waarto team Farmaajo mar labaad waxaan nahay shacabka farmaajeysan oo Mahdi midaysan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wasalaamantiin Soomaali Maxamed meel kastoo aad dunida ka joogtaan waxaan idiin rajeynayaa sharaf cizi reerayn qab inaad ku noolaataan noloshiina inta ka dhiman maca salaama ila liqaa